Hadda waa qarnigii 8aad. Waa intii u dhaxaysay 701 ilaa 800 markay taariikhdu ahayd. Dunidu waa mid qariban oo la isu awood sheeganayo. Qaaradda Yurub waxaa ka dilaacay nimankii la odhan jiray Vikingska. Waa qoladii deganeyd dhulka qabow ee Scandinavian-ka ama wadamada Sweden, Norway ilaa Denmark. Waxay nimankaasi wateen doonyo loox ka samaysan oo dheereeya. Qaaradda Yurub cirif ilaa cirif way gaadheen. Ilaa waqooyiga Amerika way u tallaabeen. Waxayna raadinayaan cid ay ganacsi la samaystaan. Sidoo kale dahab iyo dhul ay ku baashaalaan ayay rabaan. Ciddii ka hor timaadana dhiigooda si aan naxariis lahayn ayay u qubayaan. Dhinaca qaaradda Aasiya waqtigan waxaa ka jira boqortooyadii Tang Dynasty ee China ka jirtay. Waxaa dadiyowga adduunka ay la samaysatay boqortooyadaasi ganacsi. Waxaa la qorayaa gabayo iyo suugaan kala duwan. Sawir gacmeedyo ayaa la samaynayaa. Magaalooyin qurux badanna waa la dhisayaa. China markan waxaa ka jira ama ay ku jirtaa waqtiyadii taariikhdooda ugu wanaagsanaa. Dhinaca Ciraaq oo ah isla gudaha qaaradda Aasiya waxaa jooga boqortooyadii Cabbaasiyiinta oo ah mid ka mid ah kuwa adduunka ugu awooda badan. Dadiyowga caalamka oo dhan meel walba way isaga imanayaan. Ganacsi iyo aqoon baa loo imanayaa. Waa waqtigii farta laga jaray ama la dhisay magaalada Baqdaad oo markaasi qaab dhismeedkeeda dunidu la yaabtay. Waxaa la isugu keenay aqoon-yahanadii dunida. Waxaana la tarjumayaa cilmiga iyo xadaaradaha kala duwan ee markaasi dunida ka jira. Laakiin muuqaalkan Yurub iyo Aasiya toonna kuma saabsana. Wuxuu ku saabsan yahay qaaradda dahabku ceegaago waa Afrika. Inta muuqaalkani socdo waxaan si kooban u soo ururinayaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee qarnigii 8aad gudaha qaaraddan Afrika ka dhacay. Ha ilaawin inaad muuqaalkeena like saarto sidoo kale channelkana subscribe dhahdo si muuqaalada kale aad u heshid. Waa qarnigii 8aad waqtigan gudaha qaaradda Afrika waxaa ku sugan nimankii Carbeed oo ahaa boqortooyadii Umayyadeed ee xukunkeedu ahayd ama xarunteedu ahayd magaalada Dimashq ee dalkaasi Syria. In yar aan dib u laabano si aan halkan u fahanno. Qarnigii 7aad ciidamadii Umayyadeed ee xaruntoodu ahayd magaalada Dimashq ee Syria waxaa asaase iyo hogaamiyaba u ahaa saxaabigii Muawiya bin Abu Sufyaan oo ahaa markaasi khaliifkii ama hogaamiyihii ugu sarreeyay muslimiinta. Kadib geeridii Nabiga sallallahu alayhi wasallam xukunka waxaa isaga dambeeyay Abu Bakar, Umar, Usmaan iyo Cali oo ahaa afartii khulafaa ur-raashidiin. Intaasi kadib xukunka waxaa la wareegay dowladdan Umayyadeed waxaana hogaamiyaha muslimiinta ah markani Muawiya bin Abi Sufyaan. Muawiya wuxuu soo diray ciidan uu hogaaminayo Amr bin Caas oo ahaa saxaabi maskax badan sidoo kalena taatiko heer sare ah lagu yaqaanay. Waxaana uu soo diray dhanka gudaha qaaradda Afrika gaar ahaan dalka Masar oo markaasi ay ka talinayeen boqortooyadii Roomka ama Byzantine-ka nimankii la odhan jiray. Waa qolada suuratu Room ay ka warramayso. Dagaalkii dhex maray ciidankii Umayyadeed iyo kuwii Roomka. Ciidankii Umayyadeed ayaa dagaalkaasi adkaaday. Dalkii Masarna waxaa gacanta sidaas ugu dhigay ciidankii uu hogaaminayay Amr bin Caas ee Umayyadeed waxaanay noqotay xarun cusub oo Islaamku ka arrimiyo. Haddaba qarnigan 8aad gudihiisa waqooyiga Afrika waxaa ka jira awood kale oo ah qabiilada Berberka oo ahaa dadiyowgii deganaa waqooyiga Afrika. Qabiiladani way kala jabeen. Qaybtood waxay raaceen ciidankii Umayyadeed sidaas ayayna islaamnimadii ku qaateen. Qaybtii kalena ee qabiiladanina way ka soo horjeesteen waa ayna la dagaalameen ciidankii Umayyadeed. Ugu dambeyn ciidankii Umayyadeed ee asalkoodu ahaa Carab waxay isku fidiyeen waqooyiga Afrika waxayna halkaasi ka samaysteen xarumo military iyo xarumo diinta Islaamka lagu faafiyo. Intaasi oo kaliya xal kuma ekaan. Waxaa intaasi barbar socday arrin weyn waa ganacsi. Ganacsatada Carbeed iyagoo kaashanaya awoodda boqortooyada Umayyadeed waxay si laba jibaareen ganacsigii soo bilowday qarnigii 7aad ee ay la lahaayeen galbeedka Afrika. Kaliya ganacsatada Carbeed iyo qaar ka mid ah qabiilada Berberka ah kuma koobnayn ganacsigan laakiin dowladda Umayyadeed iyaga markaasi ganacsatada iyo ganacsigaba korka ka maamulayay cashuurtana
ka qaadayay ganacsigaasi. Dowladdii Umawiyiintu qabsashada waqooyiga Afrika waxay u noqotay xarun istaraatiijiyadeed oo ganacsi oo aan innaba caadi ahayn. Ganacsigii saxaraha dheer ka gudbi jiray ilaa galbeedka Afrikana isku xidhnaa ayaa markani awood badan ay saareen ganacsatadii Carbeed. Waqtiyada qaboobaha, gaar ahaan bilaha u dhexeeya 10aad ilaa 3aad, ayaa ay ganacsatadani awr xoog badan oo mid kastaa rar badan qaadi karo waxa ay waqooyiga Afrika kaga sii qaadaan alaabo ay ka mid yihiin dhar tolan, fardo, milix ama cusbo, qalab ka samaysan iron ama bir, sidoo kale maryo sharaxaad leh gaar ahaan maadada koobarka lagu sharaxay oo boqortooyada galbeedka Afrika ay u xidhaan qaab ay ku muujinayaan sarreyn iyo boqortooyonimo. Maadaama Carabtu ay xukumayeen waqooyiga Afrika, waxay uga faa'iideysteen inay isku xidhaan badda Mediterranean-ka oo ah biyaha isku xidha qaaradda Afrika iyo Yurub. Waxay gaadheen Spain, dhinaca Aasiyana ilaa Hindiya ayaa ay xiriir ganacsi la samaysteen. Alaabtana meelahaasi kala duwan ayaa ay kasoo daabuli jireen oo markaasi sidaasi ayay dhinaca galbeedka Afrika ugu qaadi jireen. Ganacsatadan Carbeed waxaa safarka ganacsiga ku wehelin jiray ama ku wehelinaya qaar ka mid ah dadyowgii berberka ahaa ee iyaga raacay ama ciidankii Umawiyiinta ama dowladdii Umawiyiinta, sidaasay kaga mid noqday diinta Islaamkana sidaas ku qaatay. Marka dadkan asalkoodu yahay berberka ee dhulkan waqooyiga Afrika u dhashay waxay ka hoos shaqaynayaan ama boosaska hoose ee shaqaalanimada ah ay ula shaqaynayaan ganacsatadan Carbeed ee ganacsigan iyagu iska leh. Dowladdii Umawiyiintuna korka ayay ka maamulaysaa. Halkii safar ee ay ganacsatadani kaga baxayaan waqooyiga Afrika wuxuu u dhexeeyaa 1000 awr ilaa 10,000 oo awr oo mid kastaa rar ama alaab culus uu qaadi karo. Waa awr xoog badan. Waxaa safarkan la socda ciidan military ah oo awood badan. Inta dhexda lagu sii jirana iyagu waardiyeynaya safarkaasi iyo alaabadaasi. Waa safar aad loo qorsheeyay. Waqti 40 maalmood ilaa 60 maalmood iyo habeenadoodii gaadhaya ayaa ay dhexda ku sii jirayaan. Waxay sii marayaan saxaraha ballaaran, meelaha biyaha leh ay isku sii beegayaan. Waxayna baxayaan bilaha qaboobaha ah. Laakiin marka ay gaadhaan galbeedka Afrika, alaabtii ay wadeen waxay ku soo bedelanayaan alaab kale. Waana halkan meesha cadaalad darrada ugu weyni ay ku jirto. Halkan si fiican ugu fiirso. Ganacsatada Carbeed waxay galbeedka Afrika ka keenayaan ama ka soo qaadayaan alaab nolol maalmeed ahaan loo isticmaalo sida cusbo ama milix iyo maryo tolan. Laakiin taas beddelkeeda iyagu waxay la soo laabanayaan macdan qayriin sida dahabka, foolka maroodiga iyo dad ay addoommo ahaan u soo kaxaysanayaan. Waqtigan waxaa galbeedka Afrika ka jira boqorro awood badan. Dhulkan galbeedka Afrika waxaa loo yaqaanaa markan the land of gold ama dhulkii dahabka. Waxaa ka jiray boqortooyooyin ay ka mid tahay boqortooyadii Ghana ee la odhan jiray boqortooyada Wagadu. Boqortooyadani waxay fadhiday dhul ballaaran oo u dhexeeya dhinaca waqooyi ee galbeedka Afrika. Waa halka ay ku yaalaan wadamada Mauritania, Mali iyo Niger oo ah saxaraha ballaaran iyo koonfurta saxarahaasi oo ah halka ugu soo dhow ee kaymaha iyo biyaha leh, ahna halka godadka dahabku ay ku yaaleen. Marka boqortooyadan reer Ghana wixii ganacsi intaasoo dhul ah u kala gudbaya ee u socda dhinaca waqooyiga Afrika ayay cashuuraysay. Sidaasina waxay ku helaysay dhaqaale aad u badan. Waana sababta ay u noqotay boqortooyada qarnigan 8aad ugu awoodda badan dhammaan qaaradda Afrika. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso dahabka iyo foolka maroodiga sida loo heli karo waan garanay. Laakiin qofka Afrikaanka ah asal ahaanna qaaraddani u dhashay sidee ayaa addoon ahaan loogu wareejinayaa ganacsatadan Carbeed? Qarnigan iyo wixii ka sii horreeyay, gudaha qaaradda Afrika waxaa ka talin jiray boqorro awood badan oo mid kasta dhul ballaaran u xukumo. Marka maadaama awood dhuleed iyo mid ciidan wax lagu kala goosanayo,
waxaa jiray dagaallo dhex marayay boqortooyinkaas Afrikaanka ah. Xilliyada dagaalladaasi dhacaan, waxaa la kala qabsanayay maxaabiis. Hadhow marka dagaalku dhammaado, maxaabiista laysuma celinayn ee boqortooyo kasta maxaabiista sidaasi ayay ku haysanaysay. Marka dadkan madowga ah ee addoon ahaanta loo siinayay ganacsatada Carbeed waa maxaabiistii dagaalka lagu soo qabtay. Haddaba bartamihii qarnigii 8aad waxaa dhacay isbeddel weyn. Dowladdii Umawiyiintu maadaama ay isku ballaadhiyeen waqooyiga Afrika, ganacsigooduna uu taxnaa min galbeedka Afrika ilaa waqooyiga, sidaasina Mediterranean-ka, qaaradda Yurub, dhinaca kale bariga dhexe ilaa Hindiya, ganacsigoodu uu ku xididaystay. Carabtii xukunka Umawiyiinta haystay waxay dadkii aan Carabta ahayn ee deganaa qaaradda Afrika kula dhaqmeen qaab cunsurnimo ah, gaar ahaan qabiiladii Berberka oo intooda badani ay Umawiyiinta raaceen, diinta Islaamkana ay qaateen. Waxay la kulmeen qabiiladan Berberka ah in loo diido inay jagooyinka sare ee dowladda ama militariga ay qabtaan. Sidoo kale ganacsigoodii ayaa waxaa la saaray cashuur ka badan tan ganacsatada Carbeed la saaro. Qabiiladan Berberka ah ee asal ahaan dhulkan waqooyiga Afrika u dhashay waxaa ku adkaatay inay arrintaasi aqbalaan. Dadkan suuraddoodu waa ay ka duwan tahay suuradda Carabta oo way ka yara madow yihiin Carabta. Dadka kale Afrikaanka ana waxaad moodaa inay ka yara cas yihiin. Marka waa dad Afrikaanka kalena sidaasi uga yara midab cas, Carabtana ka yara madow. Dadkani waxay la kulmeen in cunsuriyad haybtooda awgeed ah ay dowladdu Umawiyiintu kula dhaqanto. Waxay bilaabeen inay ishubeeyaan. Ciidan awood badan ayay samaysteen. Dowladdii Umawiyiintana kacdoon ayay kala hortageen. Inta badan ciidankii Umawiyiinta awooddoodii waa ay jabiyeen, wayna kaga adkaadeen qaybaha u badan ee waqooyiga qaaradda Afrika. Awooddii Umawiyiintu markii ay daciiftay, waxaa Jaanis ka faa'iidaystay dowladdii Cabbaasiyiinta oo iyagu markaasi ku doodayay inay xukunka Islaamka iyagu xaq u leeyihiin, maadaama ay kasoo jeedaan qoyska Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Sidaasina iyagoo garabsanaya ciidamadii Berberka ee asalkooda ahaa waqooyiga Afrika ayaa ay dowladdii Cabbaasiyiintu la wareegtay gacan ku hayntii waqooyiga Afrika. Dowladdanina iyadoo ka faa'iidaysanaysa ganacsiga iyo isdhexgalka waxay xoojisay fiditaanka diinta Islaamka ee waqooyiga Afrika ilaa galbeedka Afrika. Inta dowladdan Cabbaasiyiintu ku faaftay gudaha qaaradda Afrika, ganacsatadii Carbeed waxay sii laba jibaareen ganacsigii saxaraha ka gudbayay ee alaabaha fudud ee sida cusbada iyo maryaha ahaa ee ay galbeedka Afrika kaga soo bedelanayeen dahabka, foolka maroodiga iyo dad nool oo addoomo ahaan ay usoo daabulanayeen. Dadkaasi sidii hore si la mid ah, qaar way ku shaqaysanayeen, qaar askar bay ka dhiganayeen, qaar kalena bariga dhexe ayay u gudbinayeen si loo addoonsado. Dowladdii Cabbaasiyiinta waxyaabihii ugu waaweynaa ee addoomaha ay galbeedka Afrika ka soo waaridayeen ay u isticmaali jireen waxaa ka mid ahaa inay koonfurta Ciraaq geeyaan addoomaha. Halkaas waxaa ku yaalay meelo biyo fadhiisad ah oo ay biyo ku jiraan, kaneeco badanna ay ku noolayd. Haddaba si aan kaneecadaasi u fidin, dadkii addoomaha ahaa waxay Carabtu ku qasbeen inay ceelasha biyaha ka dhameeyaan iyagoo gacmahooda isticmaalaya, oo ay biyaha ka dhuraan ilaa ceelashaasi ay ka qallalaan. Askar baana ilaalinaysa inta addoomahan ay shaqaynayaan, waana la garaacayaa. Maadaama dhulkaasi uu ahaa dhul kulul oo cimilo ahaan xun, dhulkana lakabka sare ee ciidda ka hooseeya oo ahaa mid milixda ama cusbada ku badan tahay, macquul ma aysan ahayn in dhirtu ka soo baxdo. Haddaba si dhirtii ama halkaasi u noqoto mid dhir ka soo baxdo, dowladdii Cabbaasiyiintu waxa ay samaysay in ay dadkaasi addoomaha ah ee Afrika laga keenay lagu qasbo inay dhulkaas kulaylka badan ee ballaadhan gacantooda ku qodaan oo lakabka sare ee dhulka ay meesha ka saaraan si dhirtu ay u soo baxdo.
dhulkan beeraha laga sameynayo waa koonfurta Ciraaq, waa dalkii xarunta u ahaa dowladdii Cabbaasiyiinta. Dadkaasi addoomaha ah waxay ku shaqayn jireen duruufo aad u adag oo kulayl iyo harraad leh. Dalka Ciraaq, siiba koonfurta Ciraaq oo ahayd halka beeraha laga sameynayay, waa meel aad u kulul oo qalalan. Cimiladu bilaha samarka waxay gaadhaa 40 ilaa 48 digrii. Waa cimilo ka kulul tan qaaradda Afrika ka jirta. Cunto yaraan iyo nasasho la'aan ayay la kulmi jireen dadkaasi addoomaha ahaa. Intaana waxaa u dheeraa in la garaaco si ay hawsha u sii laba jibaaraan. Maadaama Afrika ay ahayd qaarad qani ah oo dahab iyo macdan badan ay fadhido, dowladihii Carbeed ayaa ka faa'iidaystay arrinkan oo gudaha qaaradda Afrika ka helay macdan aan xisaab lahayn, foolka maroodiga, dahab iyo sidoo kale addoomo ay iska gurtaan iyadoo markaasi cidna aanay hor istaageen ama loo xisaabinayn. Arrinkaasi haddaba carabtii ama ganacsatadii Carbeed ee ka hoos shaqaynayay dowladdii Cabbaasiyiinta waxa ay carabtu sidaasi ama ganacsatada Carbeed ku noqdeen kuwo aad u awood badan oo dhaqaalo badan markaasi haysta dunidana iyo markaasi number 1 ayay sidaasi ku noqdeen. Haddaba qarnigan gudihiisa xataa reer Yurub ayaa dadyoogoodii ay dagaalada ku soo qabteen marka ay gudaha Yurub islaayaan, boqoradii Yurub jooga ay dagaalamaan si ay dahab iyo dhul u kala qaadaan. Dadyoogoodii ay dagaalada ku soo qabteen waxay u iibkeeni jireen dalalkan Carabta ee boqortooyadan Cabbaasiyiinta oo kale u keenayaan si ay uga bedeshaan dahab iyo macdantii laga keenay qaaradda Afrika. Taasi waxay muujinaysaa ganacsatadii Carbeed ee ka hoos shaqaynayay dowladda Cabbaasiyiintu inay markaasi noqdeen kuwo xataa reer Yurub ay u baahan yihiin oo addoomaha ay iyaguna u keenaan. Dowladdii Cabbaasiyiintu kuma aysan koobnaan addoomaha ay galbeedka Afrika ka keenayeen. Waxay ku dareen inay bariga Afrika ama geeska Afrikana addoomo ka soo guraan oo ay markaa sidaasi ugu shaqaystaan. Markan qaaradda Afrika waxay noqotay xarun ganacsi oo quruumaha adduunka oo dhami ay isha ku hayaan. Soomaalida iyo dhulkooda dhinaca xeebaha waxaa ka soo galay ganacsi iyo diinta Islaamka oo wada socda. Boqolaal sano ka hor inta aanay reer Yurub cagta soo dhigin qaaradda Afrika, waxay Soomaalidu xidhiidh ganacsi oo awood badan la lahaayeen dunida inteeda kale. Soomaalida iyo dhulka ay degaan wax weyn ayaa iska bedelay qarnigan, maadaama qarnigii hore ee 7aad ay diinta Islaamku dhinaca magaalada Saylac ka soo gashay dhulka Soomaalida. Qarnigan 8aad Soomaalidu waxay aad uga faa'iidaysatay booska ay ku yaaleen maadaama uu ahaa boos istiraatiijiya ayna leeyihiin xeebta ugu dheer qaaradda Afrika. Waxay noqdeen Soomaalidu xarun ganacsi oo dhinaca biyaha ah. Dhinaca waqooyi oo ah dhanka ugu muhiimsan waxaa ka xiga gacanka Cadmeed, Badda Cas ilaa Baabil Mandab. Dhinaca barigana Badweyntii Hindiya. Ganacsiga ka yimaada qaybaha kale ee Afrika una sii socda dhinaca bariga dhexe iyo Aasiya ayaa halkan ka gudbi jiray. Ganacsatadaasi Carbeed iyo kuwa Bershiyaanka ahaa ayaana magaalooyinkii xeebaha ahaa ku hakan jiray. Halkaasna waxaa ka dhashay in diinta Islaamku ay halkaasi sidaasi ugu faafto, gaar ahaan qaybta Sunnigu ay aad ugu faafto Soomaalida dhulka xeebaha deganaa. In diinta dadka Soomaalida ay ku faafto si dhaqso ah ay ugu fido waxyaabaha fududeeyay waxaa ka mid ahaa ganacsigii Soomaalidu ay la lahayd Carabta iyo Bershiyaanka ilaa Indida. Soomaalidu waxyaabaha ay dhoofin jireen waqtigaasi waxaa ka mid ahaa fooxa, maydhaxda, foolka maroodiga, saanta xoolaha iyo sidoo kale xoolaha nool. Intii lagu jiray boqolkii sano ee qarniga 8aad, boqortooyadii tunka weyneed ee Xabashida ee haysatay dhulka Itoobiya ilaa dhulka maanta Eritrea la dhaho ayaa iyaduna la kulantay hoos u dhaceedii ugu weynaa. Maadaama ganacsatadii Carbeed ay la wareegtay ganacsigii isku xidhayay waqooyiga ilaa galbeedka Afrika, dhul iyo biyo gudaha Afrika iyo dibadda oo Badda Cas, Badda Mediterranean-ka ilaa bariga dhexena ay iyagu isku koobeen. Dowladdii Xabashida waxaa ka go'ay ganacsigii ay la lahaayeen wadamadii Mediterranean-ka iyo Hindiya. Sidaasina
waxay boqortooyada xabashida ku noqotay kuwo aan dhaqaalo haysan. Arrinkaas dhaqaale xumada ah ayaa ku khasbay inay kasoo guuraan dhinacii badda oo ahaa dhulka Eritrea oo ay ka talin jireen iyagu markaasi, waxaana isugu soo urureen dhulka Itoobiya oo ah dhul buuraley ah, wax badanna aan markaasi dee oo aan bad lahayn. Boqortooyada xabashiduna waxay sidaasi ku noqotay boqortooyo beeraley ah laakiin saameyn dhaqaale aan lahayn. Haddii dhaqaaluhu yaraadana awoodi jiri mayso. Dhinaca galbeed ee qaaradda, dhulka maanta la dhaho Mauritania iyo Mali waxaa ka botorinayay boqortooyadii Ghana oo markaasi lagu magacaabi jiray The Wagadu. Qarnigan aad bay boqortooyadani kor ugu soo kaxday. Dhaqaalo badan ayay heleen maadaama ay haysatay meel dahab badan u yaallo. Ganacsi xoog lehna ay la lahaayeen dowladdii Cabbaasiyiinta iyo ganacsatadii Carbeed. Boqortooyadan ayaa qarnigan awood weyn kaga faa'iidaystay inay sidaasi ay u hesho noqotayna tii qaaradda Afrika markaasi ugu awooda badnayd. Haddii aad ilaa halkan ila soo gaadhay, waan kaaga mahad celinayaa inaad muuqaalka bartan soo gaadhay dhamaysatayna. Sidoo kale waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkeena like aadan ka ilaawin, sidoo kalena subscribe-ta aad channelkeena saarto si aad muuqaalada dambe u hesho. Nabadgelyo.